ehelada askari ka tirsanaa ciidanka dowladda ee inta la dilay qashin lagu riday isbuucii tagay ayaa magaalada Muqdisho kulan kula qaatay guddi ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo u magacaabay baaritaanka kiiskaasi oo gudoomiye looga dhigay Xasan Xundubey Jimcaale wasiirka amniga gudaha dalka. ehelada marxuumka geeriyooday ee lagu magacaabi jiray Maxamed Mukhtaar laguna naaneysi jiray Deeqow ayaa ka gudoomay guddiga tacsiyeynta wiilkooda. إلهي بقى مهد إسكال سبحانه وتعالى بعد الله وحنو مهد علينا رئيس الوزراء أرنتي مروقات لهيد آد أنا وحو معني نوصل دري وزير كأمنية يو سراكيشا يو وزير كحجينكا على العدالة أنيقو إهلكيا محمد مختار شيخ محمد عروبة لبعتادي رنتي اللوغ يستي أنك قوض هذا لني maanta aan ka wada hadalnay dhacdadii dhacday awalan waxa ay nooga tacsiyeen waxa dhacay geerida xanuunka badan leh thaniyan waxay noo sheegeen inay awoodooda isugu geey doonaan in marxuumkaasi uu cadaalad helo. wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Xundubey Jimcaale ayaa sheegay in mas'uuliyad weyn ay iska saareen baaritaanka kiiskan oo la guda galay. كنت ذلك أنا بريم مستر كروان بأكيد أول واجب كان هاي هذا أمن الواجب كله هذين أمان كسوان هدي أمانك وحود الماني هدي وحود أنت إن تبقى على مش الصحة يقصوا جوابنا واجب كله تعال أنا المسؤول ده سواء سعرتها dilka arxan darada ah ee ula kacay Maxamed Mukhtaar Deeqow ayaa ahaa mid ay aad uga argagaxeen dad badan oo kamid ah dadka Soomaaliyeed ka gadaal markii meydkiisa lagu riday qashin qubka waxaana hadda dawladda ay baaritaan ku wadaa cidii geysatay dilkaasi si loo mariyo ciqaabta oo mutaystay. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City, Muqdisho.